baasay saaxiibkiisu dhigay lambarka markaas deedaad lambarka lixaad kabtanka waa gooye sujir bene si fiican isagii goolka osmani waa qaaday سوبر جول سوبر فرسامو سوبر تاتيكو سوبر جبلان سوبر كسمايو والليل تشابق لي شيء لاعبينتي جبلان markay loo hortameen la ka dheer kubada shabaqay leeshayeen على غريدي oo noqday macallinka 2017 best coach oo hambalyeynaya xiriir kubada cagta Jubbaland ugu horeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland aan leeyahay guul والله ku taageersanaa alxamdulillah ilaa ma hadis kale waa ku faraxsan inay koobka magaalada Kismaayo ka soo dejiyo waa koobka sagaalaad ee sugan insha Allah waa in soo dhaweynaa Jubbaland roodiyaasha waxaan leeyahay guusha sii wada guushayaale بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن داوديال سو دواده meel kasto aad naga daawanaysaan dunida dacaladeeda halkan waa Jubbaland TV fidimo wanaagsan ayaan idin leenahay daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan caawa ku falanqeyn doono xulka kubadda cagta ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo maanta sidii loo soo dhaweeyay balse marka hore waa saacadii warka waxaan si ku soo dhaweynayaa aadan Kismaayo oo warka qodobada ugu waaweyn inoo sheegaya aad baad u mahadsan tahay Yuusuf Cadaani warahmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland xarunta dhexe ee TV-gu uu ku leeyahay magaalada Kismaayo ayuu si toos ah xilligan daawadayaal kaga imaanaya fiid wanaagsan meel walba aad joogtaan qodobada wararka ugu waaweyn xilligan waxaa kamid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland shacab weynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo golayaasha dowladda ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo maanta waxa ay si weyn ugu soo dhaweeyeen xulka kubadda cagta ee dowlad goboleedka Jubbaland iyagoona markaasi koobka keenay magaalada Kismaayo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa safar shaqo maanta ku tagay degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada dalka ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyadoona halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay isbedel dhinaca qudaarta ah ayaa lagu soo waramayaa inuu ka jiro magaalada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose oo warbixin aynu idinkaga hayno wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dalka ayaa magaalada Muqdisho waxay ka daahfurtay bilowga siyaasadda dhalinyarada ee dalka culimada gobolka Nugaalna waxa ay markaasi baaq nabadeed ee u direen beelo walaalo oo Soomaaliyeed oo ku dagaalamaya gobolka Sool shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay hambalyo ay u direen xulka kubadda cagta ee dowlad goboleedka Jubbaland guushii ay ka gaareen koobkii loo dhigay dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ay ku guuleysteen wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb gashay tababar loo xirayay qaar ka mid ah bahda caafimaadka ee gobolada dalka isaga kala yimid iyo ugu dambeyntii wafdi ballaaran uu hogaaminayo taliyaha dhawaanta la magacaabay ee qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe wararkaasi iyo warar kale oo faahfaahsan ayaan daawadayaal goordhow idiin soo gudbin doonaa 9 fiidnimo hase ahaatee aynu dib ugu laabano barnaamijkii gaarka ahaa ee arrimaha ciyaaraha ee gobolka aynu ku falanqeynaynay Yuusuf Cadaani ayaan mar kale dib idinku celinayaa
mahadsanidkaasi wuxuu ahaa aadan kismaayo oo inoo sheegayay qodobada warka ugu waaweyn sida uu sheegayna 3 saac oo fiidnimo ayaad la socon doontaan qodobada warka oo faahfaahsan mar kale daawadayaal aan idiraahdo ku soo dhawaada barnaamijkii gaarka ahaa barnaamijkan gaarka caawa waxaan furi doonaa khadka taleefanka oo dadweynuhu ay si weyn nagala qayb qaadan doonaan hadduu alla idmo waxaa kaloo ila falanqayn doona oo ila soo fariisan doona xarunta dhexe ee Jubbaland TV Axmed Maxamuud Jaamac oo kamid ahaa wariyaashii maanta joogay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo oo la socday sidii ciyaartooyda loo soo dhaweynayay waxaan si doonayaa marka hore inaan faahfaahinta idin soo gudbiyo qodobo ku saabsan oo la socda warka oo ku saabsan xulka kubadda cagta Jubbaland iyo sidii loo soo dhaweeyay maanta markay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo xilli galaba ka soo degeen xulka kubadda cagta ee dowlad goboleedka Jubbaland oo koobkii horyaalnimo ee sanadkan 2017 ka soo qaaday dhammaan dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo Muqdisho ku tartamayay waxa ay koobka u gacan galiyeen oo ay u dhiibeen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo dadweynaha hortooda koobka kor ugu qaaday isla markaana yiri Jubbaland ha guuleysato waxa madaxweynaha wehelinayay golayaasha dawladda oo ay ugu horeeyaan madaxweyne ku-xigeenada Jubbaland madaxweynuhu qaybta la yiraahdo VIP-da ayuu kula hadlay warbaahinta iyadoo garabkiisa ay fadhiyaan ciyaartooydii koobka soo qaaday waxa uu madaxweynuhu u hambaliyay ciyaartooyda waxa uu sheegay inay kulamo gali doonaan isaga iyo ciyaartooygu oo ay markaasi dardaarmi doonaan ama ay ka wada hadli doonaan sidii horay socod looga sii muujin lahaa oo marar badan koobkan loo qaadi lahaa Sabriye Xuseen Barre ayaa warbixin ku saabsan arrimahaasi inoo faahfaahinaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweyne ku-xigeenada koobaad iyo labaad golaha wasiirada xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland saraakiisha ciidamada iyo kumanaan shacabweynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa garoonka magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay laacibiinta xulka Jubbaland oo guul taariikhi ah ka soo gaaray tartankii dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir soo dhaweyntii ciyaartooyda ayaa ahayd tii ugu weyneed uguna xiisaha badneed ee loo sameeyo mudanayaal la maamusay iyo dhammaan martidii kala duwanaa ee soo gaaray Kismaayo shaqada garoonka diyaaradaha ayaa loo kaliyeeyay maanta soo dhaweynta ciyaartooyda Jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo koobka ka gudoomay xulka ayaa ugu hambaliyay xulka iyo mas'uuliyiintii kala duwanaa ee Muqdisho u tagay niyad dhiska iyo dhiirigelinta laacibiinta xulka kubadda cagta ee Jubbaland madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in Jubbaland ay ehel u tahay kubadda cagta ayna taqaan sida loogu guuleysto koobabka marka ay dhabta tagaan sidoo kale madaxweynaha oo ka jawaabay talabkii ra'iisul wasaaraha dalka ee ahaa in Jubbaland ay ka buuxsameen xarfaheeda amaba xarafyada magacyada Jubbaland iyo Kismaayo ayuu madaxweyne Axmed ku sheegay in Jubbaland hadda uu koobkan koow u yahay wali Jubbaland ay haystaan 8 xaraf oo Jubbaland u haray oo xiise u sii yeeli doonta tartamada kale waxaa sharaf weyn ah maanta inaan halkan ku soo dhaweeyno annaga oo mas'uuliyiintii iyo shacabkii reer Jubbaland gaar ahaan reer Kismaayo ay maanta wada joogaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka oo la soo dhaweynayo xulka ciyaartooyga Jubbaland iyo macallimiintooda iyo mas'uuliyiintooda iyo munaasabada ay ahayd koobkii ciyaartii labaad ee bilowga ciyaaraha dowlad goboleedyada tartankooda oo sanadkii labaad oo ay noqotay inay nasiib u yeelato Jubbaland inay qaaday iyadoo sanadkii koowaad ee ciyaaraha la bilaabay Puntland ay qaaday waxaan leeyahay waa mid sharaf weyn noo ah xulkana aan ugu mahadcelinayo ciyaar wanaagga akhlaaqda wanaagsan iyo isku xidhnaanshaha ciyaartooda oo bacdallaahi ka sokow ay sabab u ahaayeen iyaga iyo macallimiintooda dadaalkii ay muujiyeen inay u ahayd sabab intaasoo dhan waxaan rabaa inaan xuso macallimiintoodii gaar ahaan Ariidi oo ahaa waayo arag soo ciyaaray soo ahaa macallin taariikhda ciyaartii maroodiga gobolka Jubbada Hoosena wax ku soo lahaa iyo asxaabta kale waxaan rabaa inaan saaxiibkay u sheego rag badan oo xulkii Jubbada Hoose ahaan jiray oo soo ciyaari jiray
maanta inay garoonka joogaan oo saaxiibadiiya oo qaarkoodaan koobabka u dhiibayay waxaan rajaynayaa mar la kaftamaya baa waxay ahayd ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi kismaayo 8 xaraf bay ka koobnayd 8 xaraf way dhammaadeen Jubbaland baa 9 xaraf ka kooban xarafkii 9aad koobkan u ahaa intaasay 9kii ugu dhantahay waxaan rabaa inaan taa kaftankeeda ku bedelo Jubbaland 9 xaraf bay ka kooban tahay koobkii koowaad baa la bilaabay 8 kala dhiman insha Allah waanu mahad celinayaa xildhibaanada iyo senatarada dad badan oo maanta koobka wax ka soo sagootiyey gabdhiyo wiilal bale oo fadhiyood garanaysaan iyo intii gobolka Banaadir joogistiisii dowladda federaalka iyo xubnihii kaliya xafladihii qiimaha lahaa loo qabtay intaba waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo waliba prime ministerka iyo mas'uuliyiintii guud ahaan ka soo qayb gashay waxaan rabaa inaan xuso waliba gabadha wasiiradda dhalinyarada iyo isboortiga Khadiija oo iyaduna door fiican ka ciyaartay abaabulka iyo isku dubaridka soo dhaweyn kadib waxaa loo galbiyey hoolka shirarka ee daawad halkaas oo qada sharaf loogu sameeyey ciyaartooyda xulka Jubbaland iyo dadweynihii ka qayb galay soo dhaweynta ciyaartooyda waxaana kala qayb galay madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa guulo kala duwan ka gaartay tartanka kubadda cagta gobolada 1971 ayay ahayd markii gobolka Jubbada Hoose uu ku guuleystay koobkii ugu horeeyay oo gobolka Jubbada Hoose uu ku guuleystay 8 koob sidoo kale gobolka Jubbada Hoose ayaa ku guuleystay koobkii dugsiyada sare ee gobolada dalka Sabriya Xuseen Barre mahadsanid Sabriya Xuseen Barre ayuu ahaa kaasi oo inoo faahfaahinayay sidii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo maanta ula hadlay ciyaartooyda Jubbaland iyo sidii uu soo dhaweeyay daawadayaal garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa ku sugnaa maanta dadweyne aad u fara badan iyo mas'uuliyiin kala duwan balse aan fiirino dareenka shacabka iyo sida uu ahaa waa boqolaal dadweyne ah oo u tagay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo si ay u soo dhaweeyaan xulka ciyaartooyda Jubbaland ee ku guuleystay koobkii dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ku dhaxmaray magaalada Muqdisho dareenka shacabka Kismaayo maanta waxa uu ahaa mid farxadeed waxaana laga dheehanayay shucuurta dadkii isugu tagay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda Jubbaland ayaa sidoo kale ka qayb qaatay soo dhaweynta ciyaartooyda xulka Jubbaland shacabkii ka qayb galay soo dhaweynta ciyaartooyda xulka kubadda cagta Jubbaland ayaa ka muuqatay dareen farxadeed oo la hadlay Jubbaland TV ayaa si qiiraysan u cabiray dareenkooda waxaan u imaaday si aan u soo dhaweeyo xulka nagi reer Jubbaland ee koobka noo soo hooyay guusha noo soo hooyay saad ogtihiin Jubbaland waxay ku caan tahay in ay koobabka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay sanad kasta qaadi jirtay walow sanadkii hadda uu garab maray laakiin sanadkan anaga ayaa ku guuleysanay farxadaas yaranaynta si awgeed aan u soo dhaweynayaan halkan u imaaday dad ugu muhiimsan oo halkan u imaaday waxay tahay maadaama dadkan goboleedka maamul goboleedka Jubbaland ay qaaday koobkii gobolada oo anagana dadka gobolada ay ka matalayaan Jubbaland maamul goboleedka maadaama anagana aan nahay shacabka Jubbaland maadaama inaan u hambalyeeno oo halkan sadartay joogno anaga taageerayaasha gobolka Jubbaland gaasatan taageerayaasha qaaska ah ee ciyaartooyda Jubbaland anigoo ka hadlayo magaca kooxda kawan waxaan halkan ka cadeynayaa in maanta aad iyo aad dareenkayga u kacsan waxaan leeyahay mar laba iyo saddex soo dhawaada Jubbaland soo dhawaada guul marwalba ku rajaynayaa waxaan leeyahay waakan dalkeena hooyo waxaan soo dhaweynayaa taageerayaasha qaaska ah ee naadi ee ka tirsan degmada Jubbaland kan jecelnahay sportiska ee Jubbaland horumarka weyn ee ku gaaray sanadkan waxaan rajaynaynaa horumarkan hadda u gaaray in si dhaqaaqo waxaan rajaynaynaa maamulka Jubbaland iyo maamulka sportiska yar iyo weyn waxaan rabnaa in horumarka sportiska laga wada shaqeeyo guud ahaan yar iyo weyn waxaan diyaar u nahay anigoo ku hadlayo magaca kooxda Farjane xasatan macalinka kooxda Farjane ah Maxamed Cumar Xasan oo ku magac dheer South Campbell waxaan leeyahay in mar walba aan jeclahay in soo dhaweeyaan maamulka Jubbaland xulka ciyaartooyda Jubbaland ayaa ku guuleystay koobkii dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir
iyadoo labada xusuusan yahay in xulka gobolka Jubbada Hoose oo 8 jeer ku guuleystay koobkii gobolada Soomaaliya ee xilligii barisamaadkii. Sabriin Saal Maxamed, warbaahinta Jubbaland, Kismaayo. mahadsanid Sabriin waxa ay noo sheegaysay sida uu ahaa maanta dareenka shacabka. waxaan se hubaa inay wax badan ka tagtay oo maanta qofka fiiriya dareenka shacabka uusan sinaba u qiyaasi karin. wax hadal lagu soo koobi kara ma ahayn dareenka shacabka ee magaalada Kismaayo. garoonka ilaa iyo magaalada Kismaayo inta u dhaxaysa dadku waa ay tugnaayeen ama waa ay socdeen ama waxa ay doonayeen in mar un arkaan koobka la soo qaaday iyo ciyaartoydii soo qaaday. xulka maroodiyaasha ee Jubbaland waxa ay noqdeen kuwii ugu ciyaarta fiicnaa inta ay socdeen ciyaarahan. Axmed Maxamuud Jaamac oo maanta goobjoog u ahaa wixii dhacay isla markaana arkayay dareenka shacabka iyo dareenka dawladda Jubbaland waxa uu la falanqeynayaa barnaamijkan gaarka ah. Axmed ku soo dhawow Jubbaland TV iyo barnaamijkan. waa mahadsantahay Yuusuf Xasan Salaan Yuusuf Cadaani waan ku dhawahay barnaamijka. mahadsanid Axmed maanta waxaad joogtay garoonka waxa aad kamid ahayd saxafiyiintii halkaasi u tagtay ama ka socotay Jubbaland TV halkaasi tagtay. bal sidii soo dhaweyntu maanta u dhacday ka hor. waa mahadsantahay mar kale Yuusuf Xasan Salaan Yuusuf Cadaani maanta Kismaayo maalmihii kale way kaga duwaneed aad bay uga duwaneed. maanta waxay ahayd maalin kale maalin jawigeedu uu ahaa maalin ka duwan jawiga ay ku jirtay magaalada Kismaayo. saakay waagi markuu bariyay ay bulshada ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ay ka wareeshay in ciyaartoydii xulka kubadda cagta Jubbaland ee ciyaarihii dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ka socday guusha ka gaaray ee ka guuleystay Puntland ciyaartii kama dambaysta ahayd ee dhaxmartay ay ku soo wajahayeen magaalada Kismaayo markii ay isqabsatay magaalada. durba waxaa bilowday in dadkii magaalada ku dhaqanaa ururada bulshada dhalinyarada aqoon-yahanada salaadiinta in ay sii tagayeen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo xilli hore. annagu taqriiban waxaan tagnay 3 saac baros waxnimo xilligaa dad baa joogay xilligaa dad baa garoonka ku sugnaa oo tiro badan. waxyaabaha aadka garoonka ka dhacay waxaa ka mid ahayd saxmadtii u daray garoonka aad baa loo soo buux dhaafshay. waxaan arkayna marka aan marayna halka loo yaqaan Baarcaleen iyo jiirada Jeerinley looga leexday aagan controlka Baarcaleen oo kale tay waxaan arkaynay dad sii lugaynayo oo raba in magaalada ka soo baxaan airportka ay lug ku tagaan. macnaheedu waxa way baabuurtii magaalada taalo dhantay buuxsan. macnaheedu waxa way baabuurtii baa laga tambatay. dawladdu way ugu talagashay baabuur tiro badan caasiya jiray koostara jiray saa ay tahay dad baa lugaynay tiro badnida dadka qaar magaalada joogana waxay ku dhaheen magaaladii waa la cileeyay airportka la soo tagay balka waran ma soo wacayeen marka jawigu airportka wuxuu ahaa mid ka duwan airportka laftigiisu wuxuu maantay qaaday culays uusan weligii qaadin. maqaayadaha yar ku yaala laftirkeeda oo adiga arkay saxmadda iyo buuqa iyo si wax loo kala gato oo ayadii ay noqotay meel adag. sidaas la mid ah dawladda Jubbaland waxa ay saartay xoog amniga. ciidamada amnigu iyo shacabku waxay isku shaqeynayeen si wanaagsan. haday ahaan lahayn ciidanka amniga muuqda iyo kuwa aan muuqan waxaa meesha ka socotay isfaham bulshadii bisayl dawladnimo in ay jirtay in dadku iyagu ay ishaagayeen mararka qaar xadka loogu talagalay iyo astaamihii loo xadeeyay ay ku ekaayeen. markii la gaaray xilligii loogu talagalay in ay soo degaan ciyaartoyda diyaaradii timid jawigu isbedelay. soo baxay oo qaybta VIP markii hore ku jiray madaxda dowlad goboleedyada madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliya Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Salaam iyo labadiisa ku xogeen xaadir bay ku ahaayeen garoonka. golaha shacabka xildhibaanada joogay golaha wasiirada waxa ka joogay wasiiro waxaa la galay saf ballaaran si loo soo dhaweeyo koobkii la sugayay ee Muqdisho naga jiray la keenay. laakiin Axmed koobka uu gacmo saartay واسكو صوير واسكو صورت هذه قعدنا صار marka madaxweynaha ugu horeyn meesha waxa ka dhacay markii diyaaraddu ay soo degtay oo co-pilotyada iyo kuwii ka shaqeynayay kuwa ay dejiyeen diyaaradda albaabkeeda marka ay soo degeen sanataro Jubbaland laga soo doorto federaalka ka tirsan iyo xildhibaano oo kamid yahay sanatar fartaag madaxweynaha hore Jubbaland kadib waxaa soo degay kabtanka xulka Jubbaland ninka la dhayo Yunus oo ahaa ninkii goolka guusha keenay saxiixay yaa koobkii soo dejiyay iyo macalinka
macalinkooda macalin qariidi isna ah nin aad taariikhda Jubbaland saameyn adag ugu leh guulo badan iyo kuwa hore iyo nusqarniye tagay iyo kuwa hadda joogaba guulo ka qayb qaatay waxa uu isna wada jir ay koobkii guusha ay soo gaareen ay ku wareejiyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliya Jubbaland mudane Axmed Maxamed Salaam isagana waxa uu la wadaagay si qurux badan soo kor u qaadaya shacabkii kumanaanka kun ahaayee maanta garoonka yimid kadibna waxa uu madaxweynahaas u soo dhaqaaqay ku xigeenadiisii la soo wareejiyay koobka qaybta gaarka nasashada gaarka ee afka qalaad lagu dhaho VIP-da ee garoonka ku taala ilaa iyo terminaalada immigrationada la socday qaybtan holalka waaweyn ee uu leeyahay airportka ilaa iyo kulli waa la buuxiyay marka madaxweyne ku-xigeenka laftirkiisa waa uu qaadayay koobka marka waxaad ka socotay meesha horta laba sawir bay lahayd sawirka koowaad oo ay leedahay waxay ahayd in Kismaayo ay tahay magaalo sports magaalo ayaa saameyn ku leh dadka qaar xataa marka la sheekayso waxyaabo ugu yaabka badan waxa kamid ah waxaan arkay maama 87 jir iyo uu sheegtay da'deeda wali naafa ah inay garoonka u timid inay daawato koobka caruurta yaryar ee maanta maalin isniin inay taan ognahay jadwalka ee Soomaaliya iskuulada lahayd dugsiyada lahayd ee maanta dugsiyadii la aftaxay iskuuladii la aftaxay meesha timidna ma cadad ma xisaab wax la soo koobi kar maayn marka Kismaayo maanta maalin kale wahayd waxay ahayd maalin ka duwan jaweedi ay soo martay waxayna noqon doontaa maalin si gaar ah ugu taariikhaysan inta kadib waxa la keenay baabuur weyn oo nooca xamuulka qaada oo dusha ka furan waxa la yiri koobka kanaynu saareenay ciyaartooyda marka kaasa koobka la soo saaray absolutely kaasa soo saaray waxa la sameeyay maamulkii ilaamihii amniga iyo waxay isku raaceen in gaarigan weyn ee xamuulka dusha furan si bulshadu ay indhaha ugu indha kula takoobka si macnaha danta laga lahaa waxay ahayd in bulshada la tuso koobka sababta loo sameeyay in la keeno baabuur weyn oo dul banaan ba waxay ahayd ciyaartooydii koobkan keentay iyo koobkii iyo kabihii uu soo qaatay Muuse oo ah ninka ugu gool dhaliska badan oo Jubbaland ciyaaryahanada kamid ah iyo koob yar oo isna sidoo kale la socday koobka weyn waxa la saaray gaari dul banaan gaariga waan saarnaa gaarigaas waxa saarneed macallimiintii guddigiisa ciyaaraha iyo warbaahinta oo loo ogolaaday markii aynu ka soo dhaqaaqnay argada airportka magaalada Kismaayo ilaa laga soo gaaro barxadda magaalada ama argada dadku qaarna way lugeynayeen qaarna caleemo qoyan ay ku soo dhaweynayeen waxyaabaha aadka dadka xaaladda ugu abuuray ee tusay sawirka ah in Kismaayo tahay nabad ay madax lugeyn karto shacab lugeyn karto waxa kamid ah markii la mariyay meesha magaalada ugu saxmadda badan madaxweyne ku-xigeenkii labaad uu degay iyo taliyay Qadir Xaj Maxamed absolutely Qadir Xaj Maxamed madaxweyne ku-xigeenkii labaad ee dowlad gobolka Soomaaliya Jubbaland iyo taliyay hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka qaybta Jubbaland Khalid Sheekh Cabdullaahi labadaba waxay ku degeen bartamaha argada iyo sidoo kale gudoomiyihii gobolka gudoomiyihii degmada dhammaan madax tiro badan oo aan soo koobi karin halkaas ay ku degeen waxay halkaas shacabka kula wadaageen in koobkii uu meesha yaalo argada barxadda muddo la taagnaa sawirrada ku galayeen madaxda laftirkooda meesha joogeen macnaha maanta sawirrada Kismaayo ay bixisay ma ahayn mid la soo koobi karo marka laga eego dhanka amniga marka la eego dhanka sida guusha looga sugayay Kismaayo qalbiyada dadka Kismaayo maanta waxay ahaayeen mid qura aad iyo aad axmedow madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Salaam markii uu ciyaartooyda la hadlayay qaybta nasashada ee garoonka hadal wuxuu jeediyay ay ku jirtay hadal dhiirigelin ah oo macnihiisu marka la turjumo uu noqonayo faan oo farkama qodna yani bilowgeena waxa uu madaxweynuhu yiri isagoo u jawaabaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayro oo laba habeen ka hor u soo jeediyay madaxweyne Axmed hadii ay rabaan koobab ka badan 9 koob sii qaadaan inay magac iska bedelaan si xarfaha ay Jubbaland ka kooban tahay 9 eray ah maadaama buuxsamay oo 9 koob ay qaaday Jubbaland aysan suuragal ahayn koobka lagu sii daro oo xarfiye buuxaan waxa madaxweynuhu yiri 8 koob hore magaca Kismaayo siinay laakiin Jubbaland koob ay u tahay oo maanta ja baa la qaaday ja oo koob la qaaday marka oo iyo inta kale way harsan tahay
هذا الكاسي محو كل اللي درن معه كل اللي عيارتوي كوك سوقان horta marka hadalka madaxweynaha uu dhahay warbaahintu la hadlayay waxaana lagu jiray qaybta gaarka ee nasashada garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo madaxweynaha markii uu u mahadnaqay ciyaartooydii macallimiintii tababarka guddigii la taliyayaashii iyo guud ahaan dhalinyaradii Jubbaland ciyaaraha markii madaxweynaha uu si guud ugu mahadnaqay waliba ku darso madaxweynaha wuxuu yiri waxaan maqlay inuu yiri in koobka ninka dhalay waxaas la siinay oo kana la siinay annagoo ilaalinayna qalbiga ciyaartooyda in wax oo badan qaadin laakiin fadhiyadanadu way badnaan doonaan kulamo badanna waan yeelan doonaa wax badanna way jiri doonaan halka laftirkeeda ballanqaad weyn baa ku jira marka luqadda la eego marka madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu aad u ilaalinayay qalbiga ciyaartooyda inuu la socday daqiiqadu la xiriiray waa mar xataa Jubbaland TV shaqaalada la kulmay waa isagii yiri madaxweynaha arinta sports ka saameyn bee la yartay oo idinka culays ka saara laftirkiina tabinteeda marka si guud madaxweynaha macnaheedu waxa weeye waxa la gudboon ciyaartooyda Jubbaland inay 8 koob oo kale isku xiga qaadaan wada loo furay ballan baa looga tagay madaxweynahana uu la dardaarmay waxa lagu yiri koob faalmo la faray kama qodno haddaan bilownay hal koobaan haysanaa inta kale 8 ah iyadoo laga jawaabayo hadalkii gudoomiyaha gobolka Banaadir Thabit ahna duq magaalada Muqdisho ee ahayd magaca in la bedelo ama in jawaab ku habboon way ahayd aad iyo aad daawadayaal barnaamijkan gaarka idinka laftiinu qayb ayaad ka noqon doontaan barnaamijku waa inoo socon doonaa muddo ayuu hadduu alla idmo aynu ku jiri doonaa hawada waxaadna qayb ka noqon doontaan dadka aragtidooda ka dhiibanaya sidii ciyaartooyda Jubbaland maanta loo soo dhaweeyay reer Kismaayo aad ay uga dharagsan yihiin idinna waxaan jecelahay in muuqaalada aan idiin soo gudbinayno aad ka arki doontaan habka soo dhaweyntu ahayd iyo wararka aan ku soo qoray baraha bulshada iyo xiriirada kale ee warbaahineed daawadayaal goordho hadduu alla idmo khadka taleefanka ayaan furi doonaa balse aan idin tuso muuqaaladii maanta aan ka soo duubnay sidii loo soo dhaweeyay ciyaartooyda Jubbaland iyo qadar dhextaala Sugaysan
يا حمر يا حمار المدن يا حمار شبل يا حمر يا حمار المدن يا حمار ديك برتمها بوس قالو بالا كراعو قوشانا كوبيغو بنونيغا سيدي سبا هو بدل أمان لقى بدل بربريو هالكيدي هديك برتمها بوس قالو بالا كراعو قوشانا كوبيغو بنونيغا سيدي سبا هو بدل أمان لقى بدل بربريو هالكيدي من عروض لقى بدل قوشانا ما بيكسر ما نقاطه بلغا لاعب غدويان لاعب غدويان لاعب غدويان لاعب غدويان لاعب غدويان من عروض لقى بدل قوشانا ما بيكسر ما نقاطه بلغا لاعب غدويان لاعب غدويان لاعب غدويان لاعب غدويان لاعب غدويان سيدي بري سمعتكي عيارتو إلى بالو ويبيلان حسيحدي بري وحالة تغيا بدبي يا قروي الشبيل يا حمر يا حمار قلمدوق يا حمار سيدي بري سمعتكي عيارتو إلى بالو ويبيلان حسيحدي بري وحالة تغيا بدبي يا قروي الشبيل يا حمر يا حمار قلمدوق يا حمار هوبي 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 باشالك جبلاني هوبي 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 بوشيقين النقا بحايا هوبي 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 دلتي اسوى برتي هوبي 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 باشالك جبلاني هوبي 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 نبدي أبرار هاي هوبي 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 بوشيقين النقا بحايا هوبي 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 دلتي اسوى برتي هوبي 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 بردي عياري هوبي 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 بردي عياري هوبي هوبي waa tahay daawadayaal aan intaasi kaga nimaadno qadarkaasi dhextaalka ahaa iyo muuqaaladii guud ee daawanayseen ee aan kasoo qabanay maanta nidaam qaabkii loo soo dhaweeyey xulka kubadda cagta ee dowlad goboleedka Jubbaland ama xulka maroodiyaasha Jubbaland daawadayaal barnaamijka ayaanu sii wadan doonaa hadduu alla idmo waxaan doonayaa hadda inaan idin soo gudbiyo warbixin la xiriirta sida madaxdu maanta ugu riyaaqsaneyd ama ay ula dhacday koobkan ay soo qaadeen ciyaartoyda Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere ayaa markii ciyaartoyda loo soo gudbiyay hoolka daawad ama guriga shirarka ee daawad waxa uu halkaasi bulshadii horteeda ku qaaday koobka isaga iyo bulshaduna halkaas ayay ku dabaaldegeen xagaryare ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inuu akhrinayo
Gusayale 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 daawadayaashayada xawada nagala xidhiidho waqti dheer cayaar badan kadib bacdi guulo qosol iyo reereyn ka bacdi waxa magaalada Kismaayo soo gaadhay raggii la sugayay rag cuslaa inkastay aad u daalan yihiin markaasi bal hadda aan ugu horeeyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland koobka ka sokow imisa biladood ama koob baynu haynaa marka koobka ka sokow saacadatul wasiir imisa biladood ama abaalmarinood ayaad xamar ka keentay afar ma aha ka badan 22 ciyaartay 6 macallin macallin aan kaftano maalintii ugu horeysay ee halkan ka dhoofaysay ma islahayd in aad guusha keenaysid ma islahayd wax walba in rag bal la dagaalamaysaa ma islahayd waxaan u maleynayaa inaad tahay wariye cusub saas daraadeed waxaan ku sheegayaa Kismaayo ama Jubbada Hoose ama Jubbaland waa la yaqaanaa weligeed guulaha waxay hanan jirtay barisamaadkii maantana waa soo bilowday kii u horeeyay ee gobolada Soomaaliya waxa qaadatay Jubbaland kii ugu dambeeyayna waxa qaadatay Jubbaland kuwa soo socdana Jubbaland ayaa qaadan doonta ilaahayna waxaan ka rajaynayaa taageerayaalka Jubbaland gudaha iyo dibadda ha joogan weligiin dhinaciina dhulka la dhigi maayo geesiyaalka xeebta dheer ku firirsan ayaa idin difaaci doona macallimiinta khibradda leh ayaa ayakana idin difaaci doona gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland dabcan waan ogahay aad iyo aad baad u daalantihiin arrinta kaliya doonayo inaad noo cabirtid dareenkaaga haddii aan ka jawaabo su'aasheeda dareenkaygu lama soo koobi karo maanta waa faraxsanahay waxaan malaayiin reer Jubbaland aan la qaybsanayaa farxadda taasoo ay sabab u ahayd guushii aan ka gaarnay Stadio Konis tartankii isteediyada aan ku hananay 22kii bisha aan ku jirno 3 bari ka hor bal hadda gabdhaha la fahantoodu kubadda kama aynay maqnayn dhinacay ka laadaanba hadda gabadh ayaa iyaduna dhinaceeda ka laadaysa ayuuna bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaa farxad weyn la buraanburka aan u tirinayaa ciyaartooydayna farxadda leh anoo gabdhihii Jubbaland maalintay gooba dereereedka guusha tahay fulayga guri noqdo geesiga gabaado oo geesiyada Jubbaland ay dhangaardiyaan gadaal ma maraan goobtay ku idil yihiin ma ayaga goolka dhalay oo raguba gartaa Jubbaland television isagoo ordaya oo aad u daalan waxaanu qabanay Cusmaan Daahir Maxamed nambarka 17aad ee Jubbaland libaxyada idinamse maroodiyada Jubbaland horta bal fahaaga caafimaadkaaga ma noo soo nabad noqotay ما شاء الله ما شاء الله عافات قبل هذا كوب قودنا وعافات قبل ان سندكي هوريه كان كيف فرحسنتاي والله سند كرو افرح سنه لكن سند كان فرحده waa dhabal waa sand kar koomanaysa sand kan koob bahaysana en ma islahayd adigoo koobka sidaayad Kismaayo bal soo noqonaysa ما شاء الله si weyn maxaa yeelay waxaan u tirinaynay training weyn 4 bilood ah oo aan ku xareysnaynay guri oo nala diyaarinayay oo hotel aan degnaynay natiijadii waxay noqotay ma sha Allah inaan koobka qaadno علي عبد الولي خليف حجريره هولك lagu soo dhaweynayay maroodiyada dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Kismaayo waa tahay daawadayaal aad buu mahadsan yahay wariyahayaga xagaryare oo markaa in la socodsiinaya warbixintii la xiriirtay dabaaldega ay sameynayeen madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo qaar badan oo kamid ah shacabka magaalada Kismaayo sidoo kale waxaan markaa u mahadcelinayaa Yuusuf Cadaani aad buu mahadsan yahay oo qeybihii hore ee barnaamijka inoo hagayay iminkana anigoo Aadan Maxamed iyo Axmed Maxamuud Jaamac oo dhinacayga bidix fadhiya ayaa barnaamijkaasi wada jira idinkugu sii daadihin doona hadduu ee baqadro waxaana diiradda barnaamijkan gaarka aynu ku saaranaa guushii ay gaareen kooxda kubadda cagta ee dowlad goboleedka Jubbaland koobkii ay markaasi qaadeen iyo markaasi sida weyn ee maanta loogu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo goordhow qadadka teleefanada iyo daawadayaasha ayaan goordhow u gadagali doonaa hadduu ay baqadro balse shacabka reer beledweyne ayaa si weyn u soo dhaweeyay guushii taariikhiga ahayd ee ay gaareen xiriir kubadda cagta ee dowlad goboleedka Jubbaland guushii ay ka gaareen tartankii ciyaaraha ee loo qabtay dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir
haddaba warbixin kooban oo ka hadlaysa sida dadka reer beledweyne ay u soo dhaweeyeen xiriir kubadda cagta ee Jubbaland ama ciyaartooyda Jubbaland guushii ay ka gaareen tartankaasi waxay noo diyaariyay wariyahayaga Sharmaake Cabdullaahi Daahir oo warbixintan beledweyne nooga soo diray. qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay ciyaaraha dowlad goboleedyada dalka ka jira ee Muqdisho lagu qabtay oo ay ku guuleysteen dowlad goboleedka Jubbaland waxayna hambalyo u direen dowlad goboleedka Jubbaland. marka waxa waaye runtii Jubbaland oo u hambalyeynaya guushii ay gaartay dowladda dhaxana waxaan leeyahay isboortigu waa isdhexgalka bulshada hiddeelo badan ay dadka gelisay dowladnimadii ayay u soo ifisay oo ah in la isku keeno intaasoo gobol waxa ugu dambeysay mar hore taariikhda stadiumkii xirnaay 25 sano xirnaay oo dib loo hagaajiyo la furay waa guul waan u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto runtii kulankaas kulanka kale ka dambeey doona waxaan u maleynayaa rag qurba jooga in la soo wada doono xitaa oo leeyahay waxaad u ciyaaraysiin gobolada ka soo jeedin aad ciyaari doontiin laf dhabar oo waxaan halkaan hambalyo ogaadin ugu diray dowlad goboleedka Jubbaland maadaama ay yihiin kooxda horyaalka ama hore loogu yaqaan inay yihiin muradayaashii gobolada tartanada gobolada loo qaban jiray ee Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo ku jar hambalyo sidoo kale waxaan leeyahay dhammaan dowlad goboleedyada inay casharo ka qaataan wacdari ee halkaas ay ka soo muujiyeen dowlad goboleedka Jubbaland sidoo kale waxaan ayadana hambalyo u dirayaa dowlad goboleedka Puntland maadaama ayadana finalka la imaado sidoo kale dhammaan bahweynta sportiska oo ugu horeeya gudoomiyaha xiriirka sportiska ee dalka Soomaaliya waxaan leeyahay shaqo wacan ayaa qabatay adiga iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Taabit waxaan leeyahay hambalyo sidoo kale waxaan halkaan hambalyo weyn marka ugu dirayaa dowlad goboleedka Jubbaland hore u sii wada dadaalkiina anagana waxaan rajaynaynaa in aan casharo fara badan aan ka qaadano insha Allah haddana waxaan hambalyaynayaa maaragtay Jubbaland hambalyaan leeyahay reer Shabeelle waxaan leeyahay diyaar garow adag ayaa la idiga baahan yahay oo hadda aad bilowdaan ilaa koobkaas soo qabsoomayo ummadda Soomaalida dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay horumarka iyo higsiga nabadda ka wada shaqeeyaan dad walba iyo dal walba ayaga ayaa dadkooda horumariya ayaga ayaa dadkooda wax u qabta ciddii wax ka sugaysa gacan kale iyo qof kalena gacan kale wax waad keeni kartaa balse maxaan ku dhahay waxay noqon kartaa wax oo aan sida u buurayn laakiin marka adigu isku tashato aad beeraha qodato oo aad maaragtay kanaalada jeexato waxaa laga caawin karaa matoor in lagu siiya macagaf lagu siiyo oo nacam lagu gacan qabto laakiin haddaad gacmaha laabato dadka wax walba waan sugayaa Soomaalidu waxay tirahdaan had la laaban xoolo kuma yimaadaan marka yaan la sugin yaan loo fadhiin yaanan la dhihin waxbaa naga maqan waxa naga maqanna ilaahay mooyaan bini'aadamna inta badan wax laga sugin Sharmaake Cabdullaahi Daahir raadiyaha TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland magaalada beledweyne waa tahay Sharmaake aad u mahadsan yahay oo beledweyne warbixintaasi inooga soo diray barnaamijkeeni gaarka ahaa ee aynu markaa ku falanqeynayno arrimaha la xiriira guushii ciyaartooyda dowlad goboleedka Jubbaland matalaysay ay ka gaareen ayaan daawadayaal bartanka kaga jirnaa Axmed Maxamuud Jaamac baa dhinacayga bidix fadhiyo goordhow qadka taleefanada iyo daawadayaasha ayaan eegi doonaa oo ay naga soo wici karaan nambarada shaashada idinkaga muuqda hase yeeshee Axmed dabcan maanta waxaad ka mid ah wariyaashii aadka ugu mashquulsanaa soo dhaweynta ciyaartooyda iyo madaxda dawladda oo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhan maanta magaalada Kismaayo ay isugu tageen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo indhahaygu laftigii waxay qabanayeen dad u badan caruur iyo dhalinyaro oo u sii lugeynaya garoonka haddana weli maxaa kaaga baxay madaxdii qaranka oo Kismaayo imaan jirto si weyn loo soo dhaweyn jiray maanta maxaa iyo farqiga u dhaxeeya soo dhaweynadii hore ee Kismaayo aan arki jirnay iyo tii maanta ciyaartooyda loo sameeyay aadan maxamed salaad aadan Kismaayo waad mahadsan tahay waxaan ku guda jirnaa qaybihii dhexe barnaamijkeeni aan ku falanqeynayna koobka kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee la keenay magaalada Kismaayo kadib markii ay ku guuleysatay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland sida aad sheegtay aadan uu maanta Kismaayo maalin kale u ahayd saxmadda dadka farxadda xaqiiqatan Somali Star ilaa Argo waa baabuurtii waa meelay maraan waayeen dadka saxmadana waxa abuurayay ma aha waxa abuurayay gaadiidkii waxa abuurayay dadka meelaha qaar dadka xiriyay si ay u arkaan koobka iyo ciyaartooyda guushan keentay iyo saameynta marka
waxay muuqataa in dadku ay siyaasadda hadda ka yara daalayaan oo dhankan ciyaaraha waayadan waa tahay aad isha loogu hayay marka badi marka soo dhaweyntii hore ee madaxda qaranka loo sameyn jiray waxa ka badisay maanta tii ciyaartooyda loo sameeyay taas waxaa cad in saameyn ballaaran ay ku leedahay Kismaayo ciyaaraha kubadda cagta oo ay hooyo u tahay oo ay koobo badan hayso marka siyaasadda wax badan baa lagaga kubadda cagta wax badan baa lagaga daawowaa oo ay siyaasadda inay ummadda ku mashquulaan in balwada lagu mashquulo in argagixisnimadu ay dadka qaar ku mashquulaan marka kubaddu wax badan bay daawo u tahay marka loo eego maanta oo kale waa arkaysay haween caruur dhalinyaro lama kala harin odayaal jiil walba oo jira maanta waxay soo dhaweynayaan marka dadku waxaan moodaa inay qarka telefoonka aad u soo beegsanayaan daawadayaasha Jubbaland TV ee daafaha caalamka kala jooga qofka u horeeya aadana way nasiib ku yeesheen barnaamijkan looga hadlayo guushii ay gaareen Jubbaland ciyaartooydeeda ayaan eegaynaa assalaamu calaykum السلام عليكم ولال kusoo dhawow Jubbaland TV waad mahadsantahay adigoo raaliya aaladda aad ka daawanaysa TV-ga inaad iska fogeysaan yar codsanayna waa barnaamij toos ah oo Jubbaland TV xarunta dhexe magaalada Kismaayo kaga imaanaya waan ku maqlayaa had moodaa aadanow in daawadahaasi xilad dhanka ay haysato isgaarsiinta ama xiriirka waqtiga telefoonka daawadayaasha waliba waxaan ka codsanaynaa in marka ay telefoonada soo beegsanayaan TV-gu ay ka fogaadaan si ismaqalkaygu uu hagaago daawadaha xiga ayaan iminka eegaynaa assalaamu calaykum السلام عليكم ولال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kusoo dhawow walaal Jubbaland TV barnaamij toos oo looga hadlayo xulka kubadda cagta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland guushii ay ka soo hayeen ciyaaraha ay koobkii maanta magaalada Kismaayo keeneen hadaad ka mid ahayd dadkii garoonka tagay hadaad magaalada joogtay si guud dareenkaaga inoo sharax أنا waxaan joogaa caasimadda Galmudug Dhuusamareeb aad iyo aad waana kusoo dhaweynaa Jubbaland koobkay ku guuleysatay وانا في حق البلشو وانا آتي مسؤولان من جحلالهين او قبل ولا لو قبطي ميل والبا هذه انا مسؤول وجهنا مجرد aad baad u mahadsan tahay reer Dhuusamareeb iyagana waan salaameynaa aad baad u mahadsan tahay ما شاء الله waxaad moodaa aadanow in saameynta koobka Soomaaliya idil maanta ishu ay ahayd insha Allah saariyay magaalada Kismaayo ee xarunta kubadda dowlad gobolka Soomaaliya ee Jubbaland daawadayaashu waxaad moodaa si ay hambaliyada ugu diraan ciyaartooyda iyo qoysaskooda inay khadka telefoonka soo beegsanayaan marka qofka xiga ayaan iminka eegaya assalaamu calaykum walaal kusoo dhawow Jubbaland TV waa barnaamij toos ah oo aan kaga hadlayno guusha ay ciyaaraha dowlad goboleedyadu ka gaartay Jubbaland codkaagu aad buu u hooseeyaa tahay aadanow daawadaha kale waxaan muddaa isna haysato cilad si guud marka waxay ahayd maanta maalin ka duwan maalmihii hore Kismaayo soo marsan hor u sheegay waa tahay dhanka kale marka ka eegno Jubbaland meelo badan bay ma aha Kismaayo oo kaliya waxaa jira baraha bulshada in maalmihii u dambeysay waxyaabo kala duwan la isla dhexmarayay oo ahayd in koobka la geeyo deegaanada xorta ah meelaha ugu muhiimsan dadku ay tilmaamayeen xagee baa kamid ah in koobka la geeyo horta aadanow dadka reer Jubbaland baraha bulshada waayadan waxaan oran karnaa inay iyagu shidnayd koobka markii la qaaday markii finalka la imaanayay kan jooga Afmadow degmada Afmadow gobolka Jubbada Hoose kan jooga Dobley oo deegaana gedo oo degmooyinkooda inta gabi ahaan bay xor yihiin waxaa la codsanayay in koobkan وصل كسمايو كو إكانين وتجا ديجاننا كله طبعا حريق كوبا عقد الجول سما دي جبلان وزارة سبورتس كأرنت أوتالا مركا سيجود واحد مودعين واضحين سيجود مركا واحد مودعين عيارو عيارين ما تكون في عن أو أي دتكو محنكر هذا يبيعان توضحين كوا الدنيا ولو هذا كوجود درا وربحين وشلي نص دري وريح يجا بار ديره
Cumar Idris waxa ku jirtay in waliba reer Baardheere ciyaartooydoodu mid kamid ah ama qaar kamid ah ay ku jireen xulkii guusha soo hoyay in ay codsanayeen in Baardheere la gaarsiiyo koobkii oo de halkaas loogu wanqalo talaftirkeedu reer Baardheere waxay u tahay dhiirigelin waliba Jubbaland waxa lagu tilmaamaa degmada Baardheere kamid tahay meelaha ugu badan ciyaartooyda Jubbaland ay ka soo baxaan degmooyinkiisa kala duwan marka la eego qadka telefoonka dhageystayaasha haddaan mar kale dib ugu noqono waa tahay dhageystaha xiga ayaan iminka aadan u eegaynaa assalaamu calaykum walaal kusoo dhawow Jubbaland TV oo aad daawanayso barnaamij toos ah oo laga hadlayo ciyaaraha dowlad goboleedyada dalka maanta guushii ay ka gaareen Jubbaland ay keeneen koobkii magaalada Kismaayo marka soo dhawow si guud dareenkaaga ما شاء الله والله والله أدفع وقحتنا درين في المسؤول كله أدفع وجه الله إنني مع رونك لكن أنا ما يالي شقة وإيه ترتبلي لكن ما شاء الله أدفع وهم قليلين يعني هدي haddii aad joogtay guriga oodan elboor aadin saameynta xaafadda iyo magaaladu sidee ahayd ما شاء الله أرجع عيارها واحد عايل قايلة قريبا ودوق ويوم بنانك ويا بحات أمر aad baad u mahadsan tahay waxaad maqlaysaa gabadhaas runtii aad u mahadsan tahay aragtideeda wanaagsan ee ay ka dhibatay maanta dadka dhan way xamaasad baa wada haystay runtii Axmedow waxaad moodaa xataa in daawadayaashu ay aad qadka u soo beegsanayaan ay mid daawadaha xiga beegsanayaan marka waxaad moodaa in ay rabaan laftirkooda in ay farxadana la wadaagaan si guud oo ay jawiga guud ay ku sugan yihiin daawadaha xiga assalaamu calaykum السلام عليكم ولا الكسر دو جبلان تي في الو ادادي مقليسو حدا ان سنه دعوadaha si oo qadka haleelay waxaad dawli been daawadayaashu ay Axmedow magaalada Kismaayo dadkeeda inta badan maalintii gool kala dhalinayay waxaan dhex maray magaalada inta badan in kastoo farxadu ay aad dadka uga tambaysay laakiin hadalada ugu badan ee social media ama baraha bulshada Facebook ha ahaado Twitterka qof walba wuxuu ku hayay koobkii mar uun argada waa la geenaya maanta argama la geeyay si adag baa loo geeyay waliba lama marinine waa lagu dajiyay ay xiddigta la duljaay ta argada xiddigta isgoyska baa la dhigay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad gobolka Soomaaliya Jubbaland baa joogay saraakiisha amniga qaarkood baa joogay muddo lagu hayay waa la dhigay argo qaar ay fursad ugu heleen inay isku sawiraan argo waa la dhigay balanta waa loo fiiyay marka magaaladu waxay ahayd magaalo maanta koobka isbedel weyn uu ku sameeyay si guud gartay daawadayaasha xiga ee qadka soo beegsanaya ayaan hadda eegaynaa assalaamu calaykum السلام عليكم ولا كسر دوا وجبلان تي في كسر دوا ولا هي درين كاغا سي غود هداد جوجتا سوماليا iyo dibadda koobkan saameynta oo yeeshay walaal waxaan joogaa gobolka Gedo gaar ahaan degmada Luuq ee gobolka Gedo haye ka waran bal dareenka iyo guusha Jubbaland ay koob ka gaartay aad ugu faraxsanahay walaal inaan koob ka keensanayo labada gobolka Gedo gaar ahaan degmada Luuq aad ba taageeraha dhammaan shacabka dhan waa ku taageeraan waa la garantahay waa tahay waxaan filaynaa in barnaamijkan ay si toos ah u dhageysanayaan madaxda dawladda codsigiina ay baal gaar ah ku qoran doonaan aad baad u mahadsan tahay marka siyaasadii waa laga nastay iyo hawlihii kale sportska marka maxaad ku talinaysaa in la xoojiyo in koobabkan in la xoojiyo aad loo taageero Jubbaland oo dhammaan qaad kasta waa tahay horta gabadhaas aad u mahadsan tahay oo kamid ah daawadayaasha Jubbaland TV ee gobolka Gedo joogta Axmed waxyaabaha horta ciyaarahan ay keeneen waxa kamid ah anigu kamid ahayn horta wiliga ciyaar ma daawan oo dadka ciyaaraha xiiseeya kamid ma ahayn laakiin waxay ugu qasabtay in isbuucyadii ciyaaruhu ay socdeen
inaan ciyaar daawado meel u fadhiisto noloshayda ma dhicnaan 30 daqiiqo ama 90 daqiiqo ciyaarta ay socoto inaan ciyaar daawado laakiin maalin dhaweeto waxa la iimayna inaan garoonka ku dhex jiro jadwalkaaga way bedeshay jadwalkaygu waa bedelay marka waxaan hadda aaminay laftirkaygu inaan markasta ciyaar daawado iyadoo de qof waliba uu de hobbigiisa u meel gaar yahay haddana ciyaaruhu waxaan aaminsanahay inay ka mid yihiin waxa kaliya ee dadka Soomaaliyeed mideyn kara waad aragtay in ka badan 10,000 oo qof Muqdisho stadium kii Konis isugu tagay oo daawadayaal ka mid ka ahaa garoonkaas waxayna ahayn dad kala duwan oo meel kala duwan oo Soomaaliya ka kala yimid qaar gobolada ka tagay runtii waxay soo xasuusiyeen dad badan oo dadkii da'da ah xilligii barismaadkii aadanow adaa ku watee maanta markii garoonka kubadda cagta garoonka diyaarada magaalada Kismaayo la keenay koobkii kubadda cagta ee dowladdu soo qaadeen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam koobka waxa uu dhiibay Suldaan Diini Mahadi Diini oo ka mid ahaa ciyaartoydii gobolka Jubbada Hoose oo soo ciyaartay 8 koob kaalin muhiim ah kala ahaa madaxweynaha gacanta ka saaray uu ku wareejiyay muddo hayay marka waxaa moodaa hataa in jilib culusti kubadda cagta ay maanta joogtay garoonka marka dhageystaha xigo fursad u yeeshaan eegi doonaa iminka qadka telefoonka ee shaashada ku qoran ee telefishinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo idin kaga imaanaya xarunta dhexe magaalada Kismaayo xaruntiisa dhexe ayaan waxaan kasoo taginaynaa barnaamij toos ah oo aan ku falanqeynayno kuna faahfaahinayno koobka kubadda cagta dowlad goboleedyada dalka ee Jubbaland ay ka guuleysatay ee la keenay magaalada Kismaayo dhageystaha xiga ee qadka ku jira assalaamu calaykum walaal السلام عليكم كسو دو جبلان تي في waxaan filayaa in daawadahaasina la dhanka farsamada ay haysato marka waxaad moodaa in daqiiqad ay daawadayaashu u soo beegsanayaan qadka assalaamu calaykum kusoo dhawow Jubbaland TV oo barnaamij toos oo ku saabsan ciyaaraha dowlad goboleedyada dalka koobkii ay Jubbaland qaaday tabinaysa xagee ku sugan tahay magacaaga iyo halka aad ku sugan tahay iyo sida aad u aragto koobka kubadda cagta ee Jubbaland ay qaaday محمد عمر تورة وكنت عندما بعرض هاي أطاي بعد ما سنتاي محمد أطاي أذنو وادركتها داودياشي جبلان تي في دغدغد قد التليفون كسو بيكسني اني غو ربين فرحدي همبليدا اي جيديان ان قفك خيغا السلام عليكم كسو دو جبلان تي في ولا المغعاغي halka aad ku sugan tahay waa barnaamij toos ah salaam alaykum waxaan mudaan fursan yahay qofkaas waxaan dabcan mareynaa aad telefoonka ugu soo celcelinayay oo ka mashquulay dhicidii marka dhageystayaashu ay ku dhacdaa inta badan ciladaas in qofka daawada xiga assalaamu calaykum السلام عليكم كسو دو جبلان تي في او برنامج توس تبينيسا ku saabsan ciyaaraha dowlad goboleedyada dalka daawadayaasha Jubbaland TV ee ka tirsan xagee joogtaa magacaaga aye salmo dareenkaaga maanta soo ahaa aad ayaan u faraxsanahay Jubbaland koobka maanta ay qaadeen aye guustaan adina weliba Jubbaland inay saan guuleystaan oo duceynaa marka salaad markaa gudbana oo duceynaa waa tahay salmo aad baad u mahadsan tahay ducadeeda Ilaahay uu aqbalay ducadeedii waxaad moodaa in uu guuleystay midda kale Axmedow waxyaabaha kale ee la yaab kale waxa kamid ah reer Jubbaland waxaad moodaa inay faashadeen waxa qof walba wuxuu ku leeyahay koobkii la helin koobka insha Allah taala anaga iskale tookadan meel kale ma aadayo garow kama dagayo Muqdisho ma qaadanayso koonfur galbeed ma qaadanayso Hirshabelle ma helayso galmudug qof walba wuxuu ku leeyahay Kismaayo qaadanaysa marka dhihi karnaa rajada aad u geliyeen haye way rajeeyeen Ilaahayna uu uga dhaweeyay waa gartay waxyaabaha ugu badan ee hadda rajada geliya waxa kamid ahaa oo sanadkii hore ka maqnaa ciyaartooyda markaan eegay sheekooyinkii ciyaartii hore sanadkii hore dhacday sanadkii hore waxa jirtay in dhakhtarkooda gaarka ah ciyaartooyda inaysan wadan macallimiin markaas xitaa ciyaartooyda qayb kamid ah ay maqnaayeen laakiin hadda waxaad moodaa in ciyaartooydii oo dhameystiran oo ilaa 20 meey ah Muqdisho loo qaaday dhakhtarkii u kalsoonaa la kaxeeyay dhakhtar fahmi la kaxeeyay sidoo kale Kata iyo macallin Qaridio oo de macallin hore ahaa
la keenay marka taas waxaan aaminay in ay keentay kalsoonida ah in Jubbaland ay niyeysato in koobka ay helayso aadanow markii sanadkii hore Jubbaland iyadoon haysan ciyaartooyda training iyo silaad tira badan laakiin niyad ahaan u dhisan dawladuna ay taageereysay waliba madaxweynuhu aad u taageerayay waxay gaareen kaalin muhiim ah meel wanaagsan bay ka soo gaareen waddo cadii madow kubadda ka helisay hadda laakiin waxa lagu leeyahay 4 bilood ayay tababar ku jireen oo meel gaar ah ku xarismaayeen intooda iyo trainingkooda iyo orodkooda iyo wax walba iyo nafaqadooda iyo ka warqabkooda iyo cuntadooda iyo wax walba laga warayay waxay ku jireen meel ay ku xarismaayeen oo tababar gaar lagu siiyay waxa la moodaa hadda 4 bilood culays la saariyay wixii lagu kunyin hadda ay ku karaamoweyn oo ay run noqotay inay guusha keeneen culayska la saaray wax walba lagu daalan say noqonaysa marka dhageystaha xiga assalaamu calaykum ku soo dhawo Jubbaland TV magacaaga halka aad joogtid halo daawadaha xiga ku soo dhawo Jubbaland TV halkeed joogtaa halo assalaamu calaykum halo halayo gabadhaas inaysan ku maqal aad baan ugu xunnahay daawadayaashu waxaan ku codsanaynaa in marka ay qadka telefoonka soo beegsanayaan ay telefoonada TV-gu ay ka fogaadaan si ismaqalkaygu u hagaago waayo qofku daawadaha xiga aadanow assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة ku soo dhawo Jubbaland TV walaal dareenkaaga si guud barnaamijkan live-ka ah magacaaga iyo halkeen naga soo wacaysaa cabdinaasir reer Puulo Burto see u arkaan in koobkii ay qaaday Jubbaland oo akeed miya aad baad u mahadsan tahay tahay reer Puulo Burto aad u mahadsan yahay oo akeed biiri kan sheekay waa tahay wali waxa soo gaarnay qaybihii dambe daawadayaasha nasiib ku yeeshay barnaamijka kala qayb galaan waan eegaynaa iminka assalaamu calaykum waa Jubbaland TV ku soo dhawo daawada magacaaga halkee joogtaa kudaa joorad joogtaa deegaan hoostaga degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose sidee dareenka kudaa jasiiradda kudaa sidee yahay dareenka in koobka Kismaayo la keenay tahay rajadu intay ku qabtay adoo markaad ciyaar daawanayso ciyaaraha bilaabanayeen dareenkaaga suu ah rajadaas maxaa ka qabtay tahay waa tahay marka adoo sharaxaya kudaa sidee ciyaaraha looga daawan jiray sidee ahayd tahay dabcan taageerayaasha Jubbaland kudaa way ku badan yihiin aad iyo aad maqlaysaa jasiiradda kudaa daawadaha naga soo wacay wuxuu leeyahay waa weligeen baa naga badan jirnay marka kooxda maroodiyaasha waxaan u maleynayaa maroodigii wuu shaqeeyey goolkii waa la dhaliyey koobkii waa la qaaday laakiin hadal baa jiro ra'iisul wasaaraha uu soo tuuray oo madaxweynahana dee sida dambaanta uga jawaabay Kismaayo 8 koob baa la saaray ereyga Kismaayo waa 8 erey weeye 8 koob baa kala hor la saaray hadda Jubbaland bay shaqada soo bedeshay marka ra'iisul wuxuu islahaa micnihii ereygii 9 koob bay haystaan oo halka kaga hari doonaan magac soo bedesho tuu yiri laakiin madaxweynaha taa diiday wuxuu yiri dadka kala loo keenay Jubbaland say u cusubtay hadda koobku yahay koob caqliga loo keenay waxa la yiri waa hadda un bambaja marayna inta kala dhameystirnaa laba ba iyo waxba si hare iyo la waxba xarfo badan baa meesha yaal ahay marka 9 koob la saaro cusub sheekada hadda koob tahay koowada saaranka dhamaatana wax dib cusbinaysiin insha Allah rajayna 9 koob laftirkooda waxay u baahan yihiin wehel waa in 9 kale loo raadiyaa taa tagi doonta waa daawadayaashu aad bay aadna qad ku soo beegsanayaan assalaamu calaykum daawada ku soo dhawow Jubbaland TV xaruntiisa dhexe magaalada Kismaayo barnaamij toos ka taginay magacaaga halkee joogtaa
magacaa walaalkeesa Jubbaland TV ka soo wacaysa فيروز حافظ فرجنا aye reer farjan soo maanta jawiga xaaladdu sidee ahayd koobka sidee u soo ما dhaweysay شاء الله عدينا شعورتنا زاد وانا أيه. وصلنا ويلشا لاعبين تمريرية aye adoo koobka ma aragtay maadaama aad Kismaayo joogto ما يمكن بيجي لكن ده لا فقدنا مننا aye aad baad u mahadsantahay axmed laftirkaaga su-aashiisan kugu soo celiyo inkastoo dee barnaamijkeenu ku guda jirno oo tibinta tooska ah aynu kaga hadlayno guushii ay gaareen xiriir ama xulka kubadda cagta ee dowlad goboleedka Jubbaland axmed qudhaado koobka gacanta ma saartay yahow Mubarakast. su'aal lamid ah agaasimis waxaan salan cadaan ay weydiinayay koobka markii diyaaradda laga soo dejiyay madaxda waan ka soo dhamaaday yaan baawur la fuulay waxa ugu horeeyaan qabto waxay ahayd inaan bal eego waxaan boodboodka iyo khaylada iyo rafaadka loo maray ee saaka loo soo kala qurux badnaa astaantii dowlad gobolka Soomaaliya ee Jubbaland astaanta qaranka lagu xarray magaca Jubbaland baa lagu qoray tirsi buu lahaa number buu lahaa aad buu u qurux badnaa waan isku sawiray iyo suurta gashaan isku sawiray shakada igu soo wasameysay waayahay daawadayaal weli Jubbaland TV ayaad naga daawanaysaan barnaamijkan aynu gaarka ah aynu diiradda ku saarayno guushii ay gaareen iyo koobkii oo Kismaayo la keenay xulka kubadda cagta ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaan diiradda ku saarnaa qaybihii dambe ayaan isla sii mushaaxinaayay axmed maanta waxyaabaha la yaabka lahaa waxaa ka mid ahaa argada markii koobka la geeyey waxaa la waayay ciyaartooydii qof kasta qof baa ka xistay gaarigii loogu talagalay in ay fuulaan loogu talagalay koobka ay ku qaataan markii intii madaxweyne ku-xigeenkii koobkii iyo saraakiishii kale ay la taagnaayeen argada waxaa dhacday in ciyaartooydii oo dhan midkiiba 10 qof ama 20 qof ay ku degtay gooni ay u shumanayaan oo gooni u kaxeysteen oo gooni loo wareysanayo taas marka maxay muujin kartaa waxay muujinaysaa isjacaylka iyo bisaylka iyo walaalnimada ka dhaxeeya dadka reer Jubbaland si gaaban markaan ku dhaho marka حتى قرانكي كده عيس دور عيارتي لهيستي مدة قفل بقف صغير لقلي صور لقلي بقف صغير لقلي مدة دي بدأ كانت إنجازيت كحتى الله ترجع لا صار مركا سجود مكا أنرهن حي موجيني سي درين كالكعلي ولا لما يسود اللي جو فرح سنة جوش أيو كانين جبلان أي موجيني سمركا داوضة حاجة يعني من كأيجي يعني صيف وياش السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته داود كسو دو جبلان تي في مقعاقا هلكا أد شوكت طب كنت ما شاء الله عندي تكمل بارديري عدي فتاح محمود اللي هذا عدي فتاح كسو دو درينكا كسويا هاي كوبكي كسمايا الله كاني هاي درينكي لمي لواتنكي إلا ما أنت أني سمكي ودبالتينا هاي أرد صدح الرماد وقفر أحسناي كو جوابت مدحوينها ورئيس الوزراء سي وهم بلينا وقفر أحسناي أيه كوفك جبلان سوق قادين وقفر أحسناي أيه معلمك معلم غريبي وجعلها يوانا سماي معلم واي هذا وبيتي بداية معلم غريبي وحن قعد سنايا إن وسقوا كان جبضه هو سكس معي كلي وسقوا كان الدولة إيجان السيسو إنه قبل جبلان سومر عيارتوي طيب بدنا جوكتو سنة تقدم وشرت عيارتوي أسود أو عيارتوي ذا كطيب بدن ونقفاني كرو جانس كاس إنه الدولة سيسان قعد سنة يا معلمك عدي فتاحو آد بعضو مع سنتا هاي وانا برامج توساس طبعا yaad ku jirtaa aad baan kaaga mahadnaqaynaa dareenkaaga iyo farxadaada waa tahay dhegeystayaas ama daawadahaas runtii waxyaabo muhiim ka dhawaajiyay oo in macalin qariidi uu tago degmooyinka Jubbaland xorta ah ee amnigooda uu sugan yahay waayo hadii macalin qariidi maanta uu tago Dhobley wuxuu ka soo helayaa ciyaartooy macquul ah afmadu haduu tago sidoo kale ciyaartooy macquul ah baar dheer haduu tago kaba daranba garbaharey sidoo kale balad xaw haduu tago luuq waxa lagu tilmaamay meelaha ugu badan ee ciyaartooyda Jubbaland ay ka soo bixi jireen waxa leeyahay suguud macalinka soo naqaysto meelaha taga la imaado dad dabcan tayale oo kuwan batay wanaagsan leeyihiin koobka waa keeneen jiil yar oo ka sii wanaagsan waxa la ramootay daawadaha qadka xiga aadan oo aan eegno aad bay u soo beegsaneen assalaamu calaykum daawade ku soo dhaw Jubbaland TV oo barnaamij toos ah ka sameysay guusha ay Jubbaland ciyaartooyda gaareen magacaaga halka aad joogto السلام عليكم
waxaad muddaa daawadahaas in mashquulsana dhanka ayaas marka aadan daawadaashu aad u soo beegsanayaan barnaamijku waxaad muddaa inay toos u daawanayaan waqtiga ayaa gabagaba ah axmedow daawadaha ugu dambeeya ayaan imika siinaynaa si aragtidiisa barnaamijka uga dhiibto aad iyo aad qofka u dambeeya ee fursadda u yeesha ayaan iminka eegaynaa aadanow السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام داود ee kusoo dhawo Jubbaland TV magacaaga halka aad joogto. Maxaan joogaa Siinay. haye sidee u aragtaa in koobka Ismaaciil la keenay dareenkaaga waa sidee sees reer Siinayna say u soo dhaweeyeen. aad ayaa u faraxsanahay maroodiyaasha Jubbaland waa u hambalyeynaya. haye guusha Jubbaland. idinkana waan salaamayaa aad baad u salaamantahay adigana waa tahay waxaan salaamayaa tiri gabadhaasi maroodiyaashii iyo guushii ay keeneen daawadayaal gunta iyo gabagabada barnaamijkeenan gaarka ah ayaa la soo gaaray oo aynu xilligan si toos ah uga daawanaysaan telefishinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland waxaanu diradda ku saarnay guushii ay gaareen xilka kubadda cagta ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo koobkii oo maanta si weyn magaalada Kismaayo loogu soo dhaweeyay oo waliba loogu wanqalay gabagabadii Axmed Haye waa tahay aadanow xaflado badan baa jiri doona hawlo badan baa jiri doona wali xafladihii soo dhaweyntu way socdaan magaaladu marka faano la fari kama qodno sanadka dambana Jubbaland waxay sheegeen inay rajeynayaan inay koobka sidaan si lamid ah ay waa sida ay maray waraysi bixinayeen sheegeen macallimiinta oo rajeynayaan inay aan laga qaadin ay adkeystaan marka dowlad goboleedyada kale ee dalkana aftirkoodu ma yareen oo saameyn adag ay ku lahaayeen si guud marka dareenku intaas u ah waa tahay aad baad u mahadsan tahay Axmed guud ahaan daawadayaal intaas ayaan barnaamijkeenan gaarka ah ee tabinta tooska idinkaga imaanaya telefishinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland aynu ku soo gabagabeynaa يوسف عداني أي مركزي برنامج كإنه هو أو قريه هو برنامج كإنه هجي أنا جي أحمد محمود جامعنا إن حلقا أما توصى أيان داودي البرنامج كإذا كوه هجيني إن بشكا يظهرية أيان كاميرا ذا أما فرسمة ذا برنامج كمركزي مركز إنه هجي إنك الصوت ظاهر وقيبته ورلس كإنه فديي وهذا كسباي أحمد محمود جامع إذا كجت جي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبه ونكسل وباصي شعبك يسوي لك نمبر كبر كاستيدات نمبر الحاد كابتنك واقوي سجل منه سيفيان يسجل جولك اوسكاري وغالي سيدي
bartamaha boos qaado baalaha ka raaco goshana ku beego banoniga sidiisaba huwad badin ama laga badin barbariyo halkeedii dhig bartamaha boos qaado baalaha ka raaco goshana ku beego banoniga sidiisaba huwad badin ama laga badin barbariyo halkeedii